بسم الله الرحمن الرحيم maanta oo jimcaha waxaan joognaa oo soo dalxiis tagnay degmada Hirwaa gaar ahaan waaxda Carfiid saad u jeedaan waxaan joognaa meel aad u qurux badan oo kuwa aan dalxiiska waxa socdo tartanka degmooyinka ee dalxiiska waxaana qayb ka ah wasaaradda faafinta dhaqanka iyo dalxiiska sidoo kale waxa ka qayb qaadanayay dalxiiskan ee bulshada ku dhaqan degmada Hirwaa iyo degmooyin kale ayagoo soo dalxiis tagay inay ku qaataan meel qurux badan waqtigooda maalinta jimcaha ah sidoo kale waxa ka soo qayb galay gudoomiyaal iyo agaasimayaal ka kala yimid degmooyinka kale gobolka Banaadir sidoo kale waxa qayb ka ah dalxiiska warbaahinta gaarka iyo warbaahinta qaranka waa u mahad celinaynaa intii ka soo qayb gashay dalxiiskan maanta waxa ku faraxsanahay inaan u soo dalxiis tago degmada Hirwaa banaankeeda gaar ahaan Carfiid waxa ku faraxsanahay waa taas Muqdisho 17 degmo looga soo dalxiis tago oo loo yimaado dalxiis degmada Hirwaa waana ammaan Muqdisho meel walba ka martid oo soo dalxiis tagi kartaa shacabweynaha Soomaaliyeed waxa ugu hambalyeynaya oo ugu bishaareynaya meel walba istaagtid Muqdisho waa nabad in loo soo dalxiis tagi karo degmada Hirwaa waatan ku soo dhawaada dalxiiskeeda wacan degmooyinka kale Muqdisho waxa ugu baaqaya degmada Hirwaa barxadan quruxda badan iyo dalxiiskan ee heesato in ay iska soo bareejayaan iyagana degmooyinka la hore u tagnana way jiraan waxa leeyahay degmadii ugu cajiibsaneed oo banaankeeda ugu soo dalxiis tagno taasna waxay ka turjumaysaa inay ammaan tahay waana ku mahadsan yahay gudoomiye Cabdixakiin iyo tiimkiisa sida quruxda badan ee noogu casuumeen dalxiiskan iyo bilicdan degmada taalo bayna mahadsan yihiin jimcaha had anagoo maamulka degmada Hirwaa inay dalxiis noogu imaadeen agaasimaha dalxiiska wasaaradda warfaafinta iyo gudoomiyaasha degmooyinka Shangaani Cabdicasiis iyo Waaberi runtii dad badan agaasimayaal kaleeto iyo warbaahinta qaranka iyo warbaahinada kaleeto ee maxalliga sida dalsan iyo asxaab badan oo fara badan dad marti sharaf kala duwan oo isugu jirto dhalinyaro ka shaqeysa dawladda iyo kuwa u shaqeeya hay'adaha kala duwan ee dalka runtii maanta anaga farxad ay noo tahay in aan maanta nagu soo booqataan ama aad noo soo dalxiis tagtaan oo aad nala aragtaan dhul in muddo ah aan isdhahaynay waa laydinkugu imaan doonaa waa laydinla arki doonaa anagu mar walba soo dalxiis tagi jirnay laakiin maanta waxaan ku faraxsanahay in maanta shacabweyne aad u fara badan iyo madax kala duwan inay noo soo dalxiis tagaan nalana arkaan meeshan quruxda badan ee aan mar walba u soo damaashaa tagno una soo dalxiis tagno runtii shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho intooda badan waxay yaqaaneen degmooyinka xadaariga ah ee loo dalxiis tago sida Cabdicasiis oo kaleeto waxaan leenahay xagga xeeba idinkaga horeyso halkaan waxa idinkaga horeeyo dhul doog leh qurux badan bilic leh xoolaha caanihi iyo geeli iyo arigi iyo lo'di sida quruxda badan ugu soo dalxiis tagtaan waxaan leenahay ku soo dhawaada meeshan waa meel qurux badan waxaan rajaynaynaa in insha Allah isbuucyada kale soo xiga in idin geey doono meel ka qurux badan ka bilicsan ka neecaw badan waxaan leenahay soo dhawaada anagu farxad ay noo tahay Hirwaada wax laga aaminsanaa waxaan leenahay shusho bax wixii laga aaminsanaa maanta isha u marqaatiya mar haddii isugu imaadeen degmooyinka xadaariga iyo qaar kamid ah agaasimayaasha wasaaradaha waxaan leenahay ha loo soo dalxiis tago ha noola imaado waan ku soo dhaweyn doonaa gacmo furan ku soo dhawaada guul idin rajaynana aad iyo aad u mahadsan. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.